booqashadan ra'iisul wasaare xasan cali kheyre oo ku tagay dhulka miyiga ah ee duleedka galbeed ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa halkaasi ugu kurgalayay xaaladda dadka dhulka miyiga ku nool ee galbeedka magaalada Kismaayo iyadoona halkaasi loogu sameeyay kulan qada sharaf ah. ra'iisul wasaaraha ayaa goobta markaa ku gadoomay caano geel iyo sidoo kale waxyaabo kala duwan oo halkaasi lagu soo bandhigay. waxaana ra'iisul wasaare xasan cali kheyre uu bogaadiyay booqashada uu ku tagay deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo gaar ahaan dhulka miyiga waxaana uu sheegay bismillaahir rahmaanir rahiim halkan sidaad aragtaan meeshan quruxda badan oo geedaha quracyada hooska neecawda iyo hawada wanaagsan waa Kismaayo banaankeeda ugu horeeya agagaarka qandal oo isugu yimaadeen madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland madaxweyne ku-xigeenka dad badan oo reer Jubbaland ah oo na soo dhaweeyay aniga iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo qaar kamid ah golaha wasiirada halkan banaanka ah ayaan ku qadaynay maanta kadibna qadadii markay dhamaatay waxaana la siiyay caano geel horteena lagu soo lisay geelina u tagnay dad Soomaaliyeed dhaqan Soomaaliyeed xoolo Soomaaliyeed neecaw Soomaaliyeed iyo geedo qurac ah oo Soomaaliya ka dhax baxay waa maalin jimco ah oo aad u farxad badan dareenka iyo shucuurteedu waxa ay leeyihiin ilaahu dalkeena noo sii hagaaji ilaahu Soomaaliya hadaan nahay dalkeena noo hagaaji si aan ugu noolaano meeshan meelihii loo aadi jiray fasaxyada oo dunida laga sheegi jiro kale la mid tahay baddi waa halkan ku taala dhinaca bidixdeena barigiina waa kanaha xoolihii dhinaceena joogan iyo caanihii waa barwaaqo dadka Soomaaliyeed waxa ka maqan kaliya inay intay maskaxdooda isu keenaan dalkooda ka dhigaan dalalka Afrika ugu horumarsan mid kamid waa mahadsantii. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Kismaayo waxa uu booqday deegaanka dalxiiska ugu wanaagsan ee waqooyiga magaalada Kismaayo ee Goobweyn halkaas oo si weyn ay ugu soo dhaweeyeen shacab iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Jubbaland oo ugu horeeyo madaxweynaha Jubbaland iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka iyadoona deegaankaasi uu kamid ahaa halka uu ku dhashay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugadheere. aadan maxamed salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Kismaayo.